wadaadkii reeraan oo kale warkiisoo kale wayaad nin shacali jawhar baa la yidhi ayaa hiiraan yimid meelahaas waqooyigu u bannaan jiray iyo galbeedka ayuu dadku wax ku bari jiray waa shariic abdunuur sheekhiisii shaxamhaadi sheekhiisii yaa kale shaam cali xasan sheekhiisii way haa shacali jawhar hiiraan buu yimid markaasuu meel muxaadara kale istaagay waano qolyaha reer hiiraan waa niman dhib badan weeye waana dheer buu galay marka caamadii dadkii baa ooyey waa la ilmeeyey waa la khushuucay oday baa hawsha u dulqaadan waayey wuxuu yidhi sheekha hal baan leehay idinkan ooyahayana hal baan idin leehay sheekhii wuxuu yidhi sheekha ii dambeeye waa idinka wada fiiqfiiqlayn horta ma dumar baa tii maxaad loo ooyeysaa dumar baa ooyey ilmada iska tiro indhaha taagoo ninka la hadlay fiiriye buu fiiq damar ma maqli karo sheekha waxaan leeyahay buu yidhi adugu namiin baaba tahay buu yidhi ahlu naar baa tahay maxaa jira ilaahay addoomihiisa wax u kala sheegaysaa buu namiimna wuxuu ilaa nabigu noo sheegay ahlu naar uu yahay adugu namiin baaba tahay buu naar baa lidin geyn meel baa lidinku kuusi jahannabaa soo fakatay waxaad ku hayso waa namiimnimo buu ilaahay addoomihiisa baad isku diraysa rufyaan baa tahay wixii ku dhacay shacli jawhar uu ka sheegay jiray dhowr fadhi buu kaga sheekeeyey shaxaad macalin xasan baa waagu u tegay sheekh yuri yaa tahay markaasuu yidhi xawaad laa dhahay markaas qisada oga sheekeeyey xawaad soo nimanka sida ay galay ma buu shaxaad cali baa ka sheekay jiray